السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan ku sugannahay masaajidka Al-Iman Islamic Center ee Soomaalidu ay ku leedahay British Columbia ee magaalada Surrey ee dalka Canada. Waxaa hareertayda midig taagan imaamkii masjidka ama sheekha magaalada Sheekh Maxamed iyo Khaliif oo isna oday ah oo odayada masaajidka ama odayada Soomaalida magaalada degan. waxaan waraysi kaga qaadaynaa maadaama ay tahay idaacadda madasha furan maalintii ugu horeysay ee laga sii daayo hawada ay ku soo birto Sheekh Maxamed marka hore ku soo dhawow idaacadda. bismillaah raxmaan raxiim waa dhaw akhi aziis waana mahadsantihiin waan ku faraxsanahay idaacaddan furitaankeeda iyo ninay timi jazakallahu khayran. Sheekh Maxamed seed u aragtaa furitaanka maalintii ugu horeysay idaacad af Soomaali ku hadasha oo Soomaalida halkan ay muddo dheer degan tahay idaacad la'aan ay ahayd afkoodii hooyo ku bixi doonta sidaad u aragtaa maxaad se ku soo kordhin kartaa wax tala ama hog tusaalaad siin kartaa? jazakallahu khayran waxaan isleeyahay in ilaacad ama barnaamij ku baxaya luqada Soomaaliga aynu hello aynu dhageysano waxay ka mid tahay huwiyadii iyo Soomaalinimadii inaynu ilaalino. waxaa la dhahaa luqadu iyo muxuu haytay language-ku waa naafidada ama daaqadu dadku ay isku gartaan dadku ay isku ilaashadaan islaamnimada dadku way isla wadaagaan waxa laga yaabaa afrikaanimada isla wadaagaan laakiin luqadaha inta badan waa lagu kala duwan yahay. marka aad baan ugu faraxsanahay in North America laga helo ilaacad markii ugu horeysay khaasatan magaalada British Columbia. annagana waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaanu ka faa'iideysan doono qaybna ka noqon doono. talooyinka aan isleeyahay waad ku dari kartaa inay noqdaan wax ummadda u faa'iideynaya hadday noqonayso diintooda hadday noqonayso dhaqankooda hadday noqonayso waxyaalaha masaalixda ay ummaddu ay wadaagto oo in muxuu ahayd ummaddu isku duubnaato wixii midaynaya ay ka wada shaqeeyaan wixii dib u keenaya ama laga wacyigeliyo ama ha noqoto dhexdooda ama ha noqoto diintooda ama akhlaaqdooda ama faamiliyada ama da'yarta. marka waxaan rajaynayaa insha Allah taala ilaacaddan inay noqoto faatixatu khayr dadkuna ay ka faa'iideystaan walaalaha gacanta ku hayana ay mas'uuliyad fiican iska saaraan maadaama ay ummadii oo dhan matelayaan ilaacaddu waxay matelaysaa ummadii oo dhan. marka waxa la idinka dhageysto waxa la oran doonaa reer British Columbia waxaasay dhaheen. marka waxaan rajaynayaa in magaceennana aad u ilaalisaan idinkana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idinku asturo waana ku faraxsanahay jazakallahu khayran. aad baad u mahadsantahay Sheekh Maxamed. dhinaca kalena waxaa taagan Khaliif oo isna odayaasha markaska Soomaalida ama community-ga Soomaalida ee ku dhaqan British Columbia Surrey ama Vancouver. Khaliif جزاكم الله خيرا. آدي آد بقى مهندسين وسودويننا إذا عدان جامعنا ومهد علينا dadka reer British Columbia oo halka muddo joogay arintan kuma aanan dhaqaaqin meeshan runtii waxa lagu xantaa inay dadku iska hurdaan laakiin alxamdulillah nin nooga yimaada Edmonton hadduu maaragtay uu badbaadinayo ummadii waa soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay. aad baad u mahadsantahay. maxaad leedahay ama adiga aad oran lahayd ha lagu soo daro barnaamijyada ka baxa ama maxay kula tahay? wallahi waxyaabaha ugu badan wacyigelinta arrimaha bulshada Soomaalida inay maaragtay ay kala war qaadato oo wixii jira oo hadba ku soo kordha dhibaato hadday tahay tacsi hadday tahay anything يعني وإذاعة إن شاء الله تعالى فائدة نوع إن شاء الله. يا أدباد مهندسين وحن ميكروفون كلا دح قادنا مانتها أو يجمعها هيد بعد الصلاة دي جمعة وحن نصيبه هلا إن نقول كل إنه إمامكي مجال ده ما إمامكي مسجد الصومالي ده يوضي ده كم ده مجال ده خليف دمان تود بعد بأمهاتسين إن شاء الله وحن شعلان لها إنه شيخ محمد دعين وقص صحراء oo idaacadda insha Allah inuu Ilaahay noo bariyo inay noqoto mid barakaysan oo dadka iyo dalka iyo ummadaba wax tarta dadkana isku keenta. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan rajaynayaa inuu ka dhigo mid khayrka ummadda u soo kordhisa walaal jaamac iyo walaalaha kale ee garabka ahna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u fududeeyo ummadana uu ka dhigo ummad wixii khayr ah isugu kaalmaysata. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'aala wa tacaawanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la tacaawanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. marka wanaagga la isugu kaalmaysto oo da'yartana aan luqadda barno walaalaha wadana Allah subxaanahu wa ta'aala ha fududeeyo hawsha ay wadaan Allahna ha ku asturo ummadana waxaan ka rajaynayaa inay ka faa'iideystaan oo ku xidhmaan oo amiraan oo waqti kooban bay baxaysaa waqtiga ay ka faa'iideystaan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
aad iyo aad bay u mahadsan yahay sheekh maxamed iyo khaliifba jazaakum allahu khayran insha allah mar dambe iyo isku soo noqosho dambe halkaa waxay noogu soo xidhmay waraysigii aan maanta ka qaadaynay dadka siday u arkaan idaacaddan cusub iyo waxa ku soo kordhay British Columbia aad iyo aad bay u mahadsan yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu